usbuucyo dhaweyd waxaa wararka caalamka haystay sawir la sheegay in laga soo qaaday god madow oo samada ku yaal. haddaba waa maxay godadkaasi madow, maxayse ka samaysan yihiin, sidee ayaana sawir looga qaaday? bal marka hore ayaa waxaan rabaa inaan wax ka taabto arrimo xiriir la leh ka jawaabidda su'aalahaas. horta marka hore indhaheennu inay wax arkaan waa in iftiin meeshaas ka yimaada. iftiinka ay indhaheennu sida caadiga u arki karaan ayaa waxaa la dhahaa visible light. laakiin waxaa jira iftiinno aysan indhaheennu arki karin. iftiinnadaasoo dhan waxaa la isku dhahaa electromagnetic waves. siyaabo kala duwan ayaa loo isticmaalaa. tusaale ahaan X-rayda waxaa loo adeegsadaa raajada maadaama uu hilibka si fudud uga gudbo oo lafaha soo sawiri karo, markaasna lagu ogaanayo laftu meesha ay ka jabtay. UV lightka isagana waxaa lagu arki karaa waxyaalo aadan iftiinka caadiga ah ku arki karin. qofkan markii iftiinkan lagu fiiriyey ilkihiisa kan aan dabiiciga ahayn waa la garan karaa, oo iligaas ka duwan ilkaha kale dhakhtar ayaa u geliyey. dheecaanada jirka ka yimaadana way iftiimaan marka UV lightka lagu fiiriyo. waa waxa keenay in dambibaarayaashu u adeegsadaan markii ay uga shakiyaan in guri qof lagu dilay, xataa haddii dhiigga qofkii meeshaas lagu dilay laga dhaqay oo aan si caadi ah loo arki karin. markii iftiinkan lagu fiiriyo isla markiiba waxaa la arkayaa haraadigii dhiiggaas oo iftiimaya. waxaa kaloo ka mid ah iftiimadan infrared light oo dadka iyo noolayaasha kulka sameeya ayaa xataa soo sii daaya, waxaana adeegsada ciidamada si xilliga habeenkii ah wax loogu arko. waxaa kaloo ay qaraaban yihiin iftiinadan radio waveska aan u isticmaalno inaan ku wada xiriirno, oo waxaa adeegsada telefoonada, idaacadaha, telefishinada iyo wixii la mid ah. radio waveskan aan inta badan u adeegsano inaan ku wada xiriirno ayaa waxaa loo adeegsan karaa in wax lagu sawiro sida iftiinada kale. iftiinadaas kala gedisan ayaa waxaa adeegsada dadka raba inay wax ka ogaadaan hawada sare. tusaale ahaan dayaxa iftiinka caadiga ah sidan ayuu u egyahay. markii lagu fiiriyo UV lightkana sidan ayuu u ekaanayaa. markii lagu fiiriyo raadiyowgana dayaxu sidan ayuu u ekaanayaa. kala duwanaanshaha waxaa keenay in qayb ka mid ah dayaxa uu iftiinka qorraxdu hayo, marka qaybtaas iyo qaybta mugdiga ah iskuma eka markii radio waveska la fiiriyo. tusaale kale ayaa ah daruuraha aadka u waaweyn ee la dhaho nebula, sida tan caanka ah ee The Eagle Nebula. marka sida caadiga ah loo fiiriyo sidan ayay u eg tahay, laakiin marka infrared lagu fiiriyo qaybo badan oo daruurtaas ka mid ah ayuu iftiinkaasi ka soo dhex gudbayaa, wuxuuna kashifayaa xidigo aad u badan oo daruurahaas ku dhex jira. haddaba iftiinadaas kala gedisan ayaa looga faa'iidaystaa in waxyaalaha qarsoon lagu ogaado. radio telescope oo dhulka yaalla ayaa lagu arkay marka godka madow ee sawiradiisa la soo bandhigay. marka haddaan u gudbo godka madow ama black hole-ka iyo waxa uu yahay, ayaa waxa uu xiriir la leeyahay xidigaha iyo qorraxda, oo godadkaasi madow asalkoodu waxa uu ahaa xidig aad u weyn oo qarxay. xidiguhu marka ay qarxaan ayaa iftiinkooda meelo fogfog laga arki karaa. sannadii 1054 ayaa waxaa jiray iftiin samada lagu arkay oo 2 sano muuqday. carabta iyo jayniiska ayaa wax ka qoray iftiinkaas oo kutub ayaa lagu qoray. haraadigii xidigtaas qaraxday ayaa maanta waxaa lagu arki karaa teleskoobyada iyada oo la dhaho Crab Nebula. haddaba xidiguhu marka ay qarxaan ayaa sida ay u kala waaweyn yihiin waxyaalo kala duwan ayaa ka dhasha. haddii uu xidigaasi aad u weynaa, waxa ka soo hara ayaa isku urura oo waxa ay yeeshaan gravity ama soo jiidasho aad u weyn. hadda ka hor ayaan ka soo hadlay gravity-ga. haddaad marka rabtid inaad si faahfaahsan wax uga ogaatid halkan ka fiiri. si kooban ayaan marka u dulmarayaa. sidaan ognahay dhulka aan joogno wixii kor loo tuuro dhulka ayuu ku soo noqdaa, waxaana loo sababeeyaa gravity-ga ama soo jiidashada uu dhulku leeyahay. dhulka kaliya maaha ee shay kasta oo cuf ama mass leh gravity ayuu leeyahay. shayba shayga uu ka cuf badan yahay ayuu soo jiidashadiisuna ka badataa. waa waxa dhulku qorraxda ugu wareego, sababtoo ah qorraxda ayaa si aad ah uga cuf badan dhulka. soo jiidashada qorraxdana ayaa ka weyn tan dhulka iyo meerayaasha kale. laakiin su'aal, ma dhici kartaa in shay dhulka laga tuuro isagoo aan shidaal iyo matoori ku xirnayn oo soo jiidashada dhulku aysan soo celin? jawaabtu waa haa. waxaana la dhahaa escape velocity, oo ah xawaaraha loo baahan yahay in lagaga cararo soo jiidashada meesha la joogo. xawaaraha soo jiidashada dhulka looga carari karo ayaa ah 11.2 kilomitir halkii sakan, oo shay intaas ku soconaya ama ka badan dhulku awood uma leh inuu soo celiyo. soo jiidashada qorraxda ayaa waxaa looga carari karaa ama escape velocity-geedu yahay 618 kilomitir halkii sakan, oo shay xawaarihiisu yahay 618 kilomitir halkii sakan wuxuu awood u leeyahay in uu ka cararo soo jiidashada qorraxda.
haddaba marka waxaa jira shay uu soo jiidashada walxuhu ama gravity-gu saameyn ku leeyahay, waxaana ula jeedaa iftiinka. Iftiinka ayaa waxa uu xawaarihiisu yahay wax u dhow 300,000 kilomitir halkii sakan. Waa waxa keenay in adoo Soomaaliya jooga, qof Mareykanka jooga uu isla markiiba ku maqli karo idinkoo kumanaan kilomitir isu jira, sababtoo ah radio wavesku waxa ay ku socdaan xawaaraha iftiinka oo kale. haddaba xawaarahaas dheereeye uu iftiinku leeyahay ayaa keenay inuu ka carari karo gravity-ga ama soo jiidashada meerayaasha dhulka, qorraxda iyo xidigaha. laakiin soo jiidashada ama gravity-ga godka madow ama black hole-ka xataa iftiinka oo ah waxa adduunka ugu dheereeya kama carari karo, taasoo keenta in meeshaasi uusan iftiin xataa ka imaan, oo ilaa si wax loo arko waa in meeshaasi iftiin ka yimaada. laakiin godadka madow iftiinka xataa waa ay haystaan maadaama ay soo jiidashadoodu aad u weyn tahay. haddaba haddii ay mugdi yihiin sidee baa loo arkay? iyaga si toos ah looma arkin ee waxyaalaha ku hareeraysan ayaa la arkay. maadaama uu godka madoobi leeyahay soo jiidasho weyn ayaa maadooyin badani ku wareegaan. iftiinka ka yimaada waxyaalaha ku wareegaya ayaa marka la arkay, taasoo macnaheedu yahay in waxa ay ku wareegayaan ee aan la arkayn uu ka dhigan yahay inuu yahay godka madow ama black hole. godkan madow ee radio telescope-ku soo qabteen ayaa ah kii ugu horreeyay ee sawir laga qaado, iyagoo loo malaynayo in kuwa kale oo aad u fara badanna ay ku yaacsan yihiin samada. intaas ayaa nooga jooga barnaamijkii maanta. intii aan mar dambe kulmi doono, nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullahi.